السلام عليكم soo dhawaada asxaabta magacaygu waa Cabdirasaaq Ismaaciil guushu waa abaalmarinta ruuxa halgamaaga ah waxaad ku dhex nooshahay qarni nolosha adduunyada lagu jaangooyay maado bal eeg haddaad sabool tahay ama aadan ahayn guuleysta magac leh waxaad arki doontaa in aysan cidna dhowri doonin shakhsiyadaada iyo sharafkaaga balse haddaad tahay shakhsi hanti u saaxiiba ama magac waxaad arki doontaa iyada oo dadku kuu sacbinayaan kuna adeegayaan haddase sababtu maxay tahay bal adigaba garo sirta ku jirta guushii Michael Jordan oo ahaa shakhsiga ugu xariifsanaa ciyaaraha kubadda kolayga ee dalka Mareykanka wuxuu mushaar ahaan u qaadan jiray sanadkii in ka badan 15 milyan oo dollar ma kula tahay inuu ku gaaray heerkaas meel fadhi Michael Jordan wuxuu yiri in badan ayaan ku fashilmay socdaalkii nolosheeda taasina waa sababta aan u guuleystay bal eeg Mo Farah waa shakhsi ku soo caanbaxay ciyaaraha orodada kuna guuleystay bilado badan waana nin noloshu ka soo bilaabay meel hoose ilaa uu ku gaaray darajo sare wuxuuna noqday xidig sharaf weyn u soo jiiday dalka Ingiriiska balse adiga iyo Mo Farah maxaad ku kala duwan tihiin ma isleedahay meel fadhi ama xaglo laaban ayuu ku gaaray guusha ma waxay kula tahay in guushu ay iska timaado iyadoo aan loo halgamin kolaytaba waad dhiman doontaa ee ha dhiman adiga oo sabool ah oo gaajeysan hamiga aad ka lahayd inaad ku guuleysato balse ku dhimo adigoo haysta guul iyo hamigaaga oo meel sare ah adduunyadan aad ku nooshahay waa adduunyo ku dhisan socod wax walbana waxay ku jiraan xanaan socod dheer waxayna la socdaan waqtiga Axmed Shawqi wuxuu leeyahay xikmad aad u muhiim ah taasi oo ah himiladaada laguma gaaro rajo balse waa loo halgamaa waxaan rabaa inaan ku baro xirfad yar haddii aad adeegsato aad ku liibaani doonto eebeydinkii soo iibso buug yar oo jeebkaaga qaadi kara kuna qor jawaabta su'aashan waa maxay waxa aan ka doonayo in aan xaqiijiyo mustaqbalka fog kadibna hoosteeda ku qor oraahdan haddii waxa aan doonayay in aan gaaro ay dad horay u xaqiijiyeen aniguna waan xaqiijin karaa balse haddii aysan jirin dad horay u xaqiijiyay waxaan noqon doonaa qofkii u horeeyay ee xaqiijiya haddaba akhriso oo ku celcesho waqti walba oo aad fursad u hesho akhrinteeda ogowna haddii aadan isku akhrin maalin walba himiladaada ugu dambeyntii waxay isku bedeli doontaa rajaduna waxay calaamad u tahay qofka aanan jamasho lahayn ama aanan doonayn inuu guuleysto haddaba daawada waxaan soo gaarnay dhammaadka muuqaalkeena waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawatay